jirtaa wax muruga ah oo ku soo food saaray ama aad la kulantay inkastood weli dhalinyaro tahay aad xasuusatid ee xusuus kugu reebay iyo murugo weliba soo dhowo Ogbaad ها وجيران waa waraysi kale oo aan la yeelanaynaa mid ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed maanta fanaaniintu iskuma jiraan waxaan waraysi la yeelanaynaa fanaanada xidigta Ogbaad Aragsan Ogbaad Maxamed Cabdi aanu jeclahay inaan dhowr su'aalood weydiino oo ay ka mid yihiin odaygeeda iminka ay isqabaan waxa ay ragga Soomaaliyeed kaga dooratay maadooyinkii ku adkaa berigay iskuulka dhiganaysay yaraanteedii iyo weliba waxaanu wax ka weydiin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo wax caqabada ay kala kulantay waalidkeed berigii ay fanka iyo muusiga ku soo biiraysay waxaanu kaloo wax ka weydiinaa dadka warxuma tashiilka ee meelaha wax ku qora ee sida guracan u fakara waxa ay ka aragtida ay ka qabto waxaynu ognahay oo kale aanu jeclahay inaan wax ka weydiino Ogbaad haddii Ilaahay yiraahdo waxa ay jeceshahay dhawaan inay qabato iyo in ay jiraan mustaqbalka fog waxay ku taamayso meeshay dalkeena hooyo jeclaan lahayd inay kaga noolaato ama adduunka oo dhanba haddaba waraysigii waa kanoon iminka dabka ka soo qaadnay aan soo dhaweeyay marka hore Ogbaad aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa sharaf iyo karaam inay noo tahay inaad nala fariisatay soo dhawow adiga mudan walaalo وحقاق Ogbaad Aragsan waa tuma waa Ogbaad Maxamed Cabdi yaraantaadii markaad iskuulka dhiganaysay ma jiraan maadooyin aad u jeclayd ama kadeed kugu ahaanad jeclayn maxaad se nooga sheegi kartaa ها كلي وكوشي كرا عربي دا يبير أكيد وحنا نوش على إنجليش تأيي حسابته وحقاق markaad fankii suugaanta go'aansatay inaad ku soo biirtay ma jirtaa wax taageeraad kala kulantay adiga waalidka كلي ده مركب فن لو صار بيري والد أنت بدن تاجر لقى مهلا مركب والد كل حكاية مسين هندي مقارنة يسا أم بدي وح خلدن أم با فنكا لكن فنكم معه وح خلدن وح كلي لقولي رجليو بشوي أنت والد كي يقومي تاجر مركب أنا نقول سوق لي بس لكن مركب دم بأي أوجادين إنه فنك واحد أهين ويهاي ده واحدة كل يقولي رجليو ويقول تاجرن وأنا يفرح سيه وحقاق هدارنا إمك وجودنا هسه malaayiinta dadku ay daawadeen oo kuwa ugu shidan ka mid ah heesaha Soomaalidu ay qaado waayahan dambe inta badan heesa jacayl oo dareen ka turjumaya ayay u badan yihiin ma wax adiga ka turjumaya dareenkaaga mise waxa tahay fartiin gudbiyo abwaaniinta Soomaaliyeed sharfan ba ku dhiiba heesa oo adigu gudbinaysaa qura kulli inta badan fanaanku fariinu buu gudbiyaa ويريهن كل ما نسليها أنت يجا وحكود عاي كهذلي كل أنا قد وين كوباي سودي بو قد بيوم بان هاي وحنيجي قد عاي ما يأهل وقرتي نيسن درين كاي كترجمين بدل كل ساعة شيكتيبا حصية شيء وحن جعلها مركز لهم كوي دي سؤال حساسية وحتى هي مرو أضيقا لو أضي موسيشنو خيارة حوضنا الصلاة شرف بانو مرينينا طبعا ragga Soomaaliyeed ee geeyigeena jooga maxaad kaga dooratay asaga waad u tiraa leeyahay kani waa kii quraha soo dhaw kulli naf waliba naftoodan way ogtahay midaasan kaga baxaya waxaan kaga doortay ragga Soomaaliyeed calaf baan ay sukaay kani ma sha Allah waan ku faraxsanahay وحقاق وحنو جعلنا إننا سوكين بشارين إلهي إنه بشبشي برواق إذن كنوا ليو عرف ما سوكين قلي ذات كذا سوق جعشين كوي سكوار النقطة نبض يعانو ويلي عانا يانو لنا هاي قوي سومالي ذا قروح بدنا إناتهين أيها هالكاس كموقتفتين كبحية هريو صعدا يانو ذا لنا من كل رجلنا وناجينا يوذا جوجينا جعل كينا وحقاق هدان انتا كقد بأرنتا أيضا وحن جعلنا كوي ديوك بعد عاوة ورد القادة سؤال هيجا هدي لهي هذا واحد جعلنا كويديو فنكا يسوان تكسكو مجرتا وحيالا كلا
ood jeceshahay mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog inaad qabatid ood fanka ka hareero wadid haddayse jiraan ooda ka soo qaad balaanu dhegeysanay kolley way jiraan oo niyadii qalbiga waan ku hayaa laakiin wax imikaan ku odhan karo waa waxaasoo kuu taaban karo maaha wax laakiin qalbigayga ku jiro insha allah marka timaado la iska arki doonaa haddii ilaahay ka dhigo waa hagaag sirtaas aad qarsanaysid iyo waaga ay soo shaacbaxdaba haddii aan la yidhaahdo markhaati unbaanu ka noqon doonaa siday rabto waxay doonaan baa ahaadaane allah kuu guulaysiyo mid guulo waaweyn kasoo hoyeysa riyadeeda allah ka dhigo waa hagaag ma jirtaa wax heesaa ood dhowaan dabka ka soo qaadaysid haddii ilaahay yidhaahdo maxaa soo socda haa way jiraan hees barcaa baa ugu horeysa kole waxaa kalena way ku daba xigaanuun insha allah haddii ilaahay nafteenoo daayo waa hagaag haddii aan ku weydiiyo su-aal kale xaggee ayaad jeclaan lahayd adduunka inaad kaga noolaatid haddii caawo fursad dahaba lagu hordhigo oo lagu yidhahdo xaggeed ku noolaan lahayd soo dhowow mar kale waxaan dooran lahaa inaan daalo guri ka dhisto insha allah waana ku rajo weynaha inaan ka dhisto halkaasaan jeclaan lahaa inaan noloshayda iyo mustaqbalkayga dambe aan ku noolaado aad baan u jeclahay وحاجة سؤال waxay ka imaanaysaa dadweynaha qaarkood oo nala soo xiriiray marka aanu baahinay aanu waraysi kula yeeranayno waxayna leeyihiin hees waxaa jirtay dhawaan stuudiyaha weyn ee waqal stuudiyo uu baahiyey ee kunka maxaa la yidhahdaa 1 milyan dhawaan kurka ka jiray ayagana waa u mahad celinaynaa waxaana leenahay 2 milyan ee dhawaan kurka ka jiray 1 milyan ee qof ee ku xiran waxaanu jecelnahay 2 milyan iyo 5 milyan ayagoo gaaray dhawaan inaanu aragno heestaas ay duubeen waxaa ku jirtay adigoo dabaalanaya bal dadka u sheeg xaggeed dabaasha ku baratay ma yaraantaadii waa taqaanay mise dhowaan ayaad baratay soo dhowow dee waxaan ku bartay berbera iyo reerabtigay haddaanu dib u eegno heesahaaga qaar ka mid a heese fara badan oo xula ayaad qaaday haddaan ku idhaahdo ugbaaday bal 3 heesood aad is leedahay alleere 3daas ma kala dooran karo ma kala dhacaan bal noo sheeg adoo nagu adkeenin soo dhowow maya heesahayga waan wada jecelahay anaana wada qaaday mid walibana waa ii xun waa hagaag haddaan halkaa ugaga baxnay heesahaagaas aad diiday inaad kala xulato tiri midba midda kale kama dhacdo kulligoodna waxa weeye xul bay yihiin waxaan ku leenahay guulayso haddii aanu uga gudubno intaas arrimaha heesaha aan wax kaa weydiiyo nolosha kale ee dhabta haddaanu gudubno ma jirtaa wax muruga ah oo ku soo food saaray ama aad la kulantay inkastood weli dhalinyaro tahay aad xasuusatid ee xusuus kugu reebay iyo murugo weliba soo dhowow ogbaad haa way jiraan maalinkii habartay dhimatay allah naxariista jannaha ka waraabiya ayay igu murugo badnayd waa hagaag alla waxaan nooga baryaynaa inuu u raxmado samar iyo iimaan adiga iyo ehel iyo qaraabana uu ka siiyo ummadoo dhanna waxaanu jecelnahay inay usoo ducayso waa hagaag haddaanu murugadii iyo nolosha qeybaheeda taabanay noloshu waxay ka kooban tahay baa la yidhaahdaa farxad iyo murugo isku dhafan oo midba waktigeeda iyo maalinteeda joogta bal wixii dunida kuugu farxadda badnaa ee kusoo mara waayahan dambe intaad xasuusatid ooda ka soo qaad daawadayaashu bal ha dhegaystaane wallaahi dee kolley aniga maalin walba waayo maalin farxadeed wax khaasoo ma jiraan laakiin maalin walba waan iska faraxsanaa maalin walba iyo maalin farxadeed waa hagaag maalin walba inaad farxad ku nooshahay aad faraxsan tahay waa wax lagu farxo ku noolow farxad iyo bashbash iyo barwaaqa ayaanu ku leenahay intaa ayinka badan baanu ku rajeynaynaa dhammaan annaga iyo daawadayaasheenaba iyo taageerayaashaana dunida daafaheeda bal markaanaanu ku weydiiyey su-aal kale taageerayaashaana dunida daafaheeda jooga ee malaayiinta ay ku daawada maxaad caawa ku oran lahayd hadday ku hor fadhiyaan soo dhowow ama fartiino u diraysaa taageerayaasheeda waxaan leeyahay meel kastaad joogtaan waan idin jecelahay sidaad iigu faraxsantihiin baan idinku faraxsanahay idinkaan wax idinku noqday idinka halkan isoo gaadhsiiyey anna sidaad iigu faraxsantihiin id halkan iisoo gaadhsiisana ayaan qof walba jeclaan lahaa inaan halkiisa ugu raali geliyo oo waxaanu awoodi karo aanu sameeyo aad baan idin jecelahay baan leeyahay noolaada meel kastoo joogtaan waa gartay waxaanu malaynayaa taageerayaashaasu inay qanacsan yihiin caawo fartiin toosoo idinkaga timid weeye xidigtiina aanu aad u wada jecelnahay fankii sugaanta ku cambaxday idinkaan wax idinku ahay dadku waa uliya diirkeed lama kala maarmo waa buday iyo biyo weeye ayay ku leedahay saaxiibayaal waxaanu jecelnahay inaanu intaa kusoo gabagabayno waraysiga aanu la yeelanaynay xidigta soomaaliyeed
ugbaad aragsan oo iyadu joogtay kuna sugnayd caasimadda fanka iyo suugaanta soomaaliyeed somaliland hargeysa joogtay ayaanu aad ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo halkan stuudiyaha cabdifataax cali sharuuc ayaa duubay aad iyo aadna ugu mahad celinaya isla marhaantaana dhidgareeyey stuudiyana hargeysa waxaa duubay nuuruddiin wiilka faraha looga gubtay ee farsamada caanka ku ah allahu karaameeyanu ku leenahay saaxib shariif karaamay noo tahay waa hagaag ogbaad aragsan waa kuu mahad celinaya 100% sharaf iyo karaamay noo ahayd inaan nooga fariisatid ee aanu shaahayno hawada ku shaahayno dadka ku jecel ee ku taageera dunidana aad maaragtay toos ula hadashid allahu karaameeyo mar kale iyo mar labaadna adiga odaygaaga wasalaan sharaf baan hawada idiin soo marinaynaa idiinna saaraynaa guulaysta waa hagaag intaasoo keliya maahan odayaasha ugu khiyaarsanaa ayaan dib u dhigtay waxaan jeclaa inaan u mahad celiyo oo gundhig barnaamijkan u ahaa walaalkay marna saaxiibkay mustaf sulaymaan oo asagoo ka tirsan kooxda xargagoosatay khiyaarta waqal studio aad iyo aad baan kugu mahad celinaa saaxiib khiyaar baa tahay ahlu sharafo 100% oo kugu mahad celinaa oday soomaaliyeed guulayso daawadayaal fikirkiina noogu reeba ugbaad aragsan iyo waraysiga aanu la yeelanay saad u aragtaan isla marxaantaana waxaan ka codsanaynaa dadka kale ood jeceshiin ee xidigaha inaanu dhowaan soo casunno aad jeceshiin aad hoos noogu soo qortaan waa anigoo cabdixafiid maxamuud jaamaca intaanu kale dib u kulmi doono guul iyo gobonnimo asalaamu calaykum waraxmatullah